ولو channel Sharmaboy cidi sida gooda gacanta haysa aad baan u garanaya halka ma aad ugu salaamaya waxa weeyaan runtii wariye Soomaaliyeed iyo YouTuber Soomaaliyeed Cabdiqaadir Koronta la yiraahdo waxa weeyaan xisaab wararka channel la yiraahdo iskale بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتي wanaagsan daawadayaal halkani waa xisaab wararka ku soo dhawaada barnaamijyada alaaba xilligan oo kale aan idin soo baahino waxaana inta badan aynu soo xulnaa qodob aan islenahay waa loo baahan yahay bal inay bulshada wax badan ka fahmaan ama mararka qaar dadka si qalad u fahmaan ama jahwarar uu ka jiro waxaan rabnaa bal maanta inaan si gaar u eegno dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee social media gaar ahaan fanaanka Sharmaboy oo dhawaan la sheegay in YouTube-kiisa uu hawada ka baxay isla markaana qaar ka mid ah dhalinyarada YouTube-ka ay tilmaameen in qofka gacanta ku hayay uu ahaa Koronto dhinacayga midig taagan isla markaana uu ahaa qofka soo celiyay bal arrimaha si aan wax badan u ogaano ayaan rabnaa halkan bal inaan Koronto wax ka weydiino idin nala socdo insha Allah soo dhaw Koronto aad baad u mahadsantahay Cabdiqaadir Cumar Cabdulle ugu horeyn bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan waxa idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu xogaa maalmahan waxaan shaqeynayaa intaas ay xiran tahay sanqoolnimadeeda aad dareemaysaan mar walbana shaqada ayaa muhiima waxaa jiray Cabdiqaadir su'aal asxaabta qaar ay aad ii soo weydiiyeen markay xiisadii taagan tahay waxaa jira su'aalo fara badan oo asxaabtu is weydiiyaan channel nin odaya uu leeyahay Cawil official nabadoon aad baan ku salaameynaa waxaa jiray mid kamid ah barnaamijyadii uu ku falanqeynayay arinta nabadoon Daahir Cali Sow iyo fanaankeyga Sharmaboy waxa uu ka dhawaajiyay in channelka Sharmaboy aniga aan gacanta ku hayo muxuu ahay iyo arrimo fara badan oo la xiriira asxaab badan marka arintaas waxay la soo weydiiyeen marka maalmihii la soo dhaafay xiisad marka ay taagan tahay inta badan ma jecelin inaan xiisadaas aan focus ka saarno xogaa markay yara qabowda ayaan jeclayn marka waxaan rabaa in halkan bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago Sharmaboy waa nin aan aad u garanayo Daahir Cali Sow waa nin aan aad saaxiibo u nahay labadaba waa laba shakhsi oo aad isugu fiicannahay hase ahaatee maanan jeclaysan inaan muxuu ahay sheeg arintooda dhaxdooda ima deeqdan dhigi karaa balse muhiimadda maanta halkan aan u joogno waxay tahay su'aasha asxaabta ay soo weydiinayaan oo ah hadalka walaalkeen uu ka dhawaajiyay channelka Sharmaboy waxa gacanta ku haya inaan saaxiibanahay oo la yiraahdo Deeq Darajo teamkaas ayaa u qaabilsan aniga ay jiraan channel aan gacanta ku hayo oo fanaaniin ay leeyihiin oo ka mid yahay fanaankeyga Dayaxdal Nuurshe Iidla Cabdullaahi Nuune Iidla Yare iyo fanaaniin kale aad u fara badan oo kala joogaan Kenya Muqdisho Hargeysa kaliya fanaaniin ma ahan waxaa jira jannaalo waaweyn oo muxuu ahay sheeg aad wada garanaysaan aad u garanaysaan oo dhinaca dhaqaalaha lacagahooda aan anu wakiil ka ahay bil walbana halkan aan lacagahooda ka diro Balambaalis Studio saaxiibkay Saami Cadde Kaskey Production iyo jannaalo kale oo aad u fara badan runtiina waxaa walaal lagu yahay in la isgarab istaago maadaama Soomaaliya aysan lahayn waxa loo yaqaan Google AdSense Ethiopian aysan lahayn marka Kenya ay ka bilaabanayaan ilaa inta la sii baxaa marka bal daawano Cawil ereygi uu ka dhawaajiyay ee keenay bal in asxaabta qaar aan ka jaahil bixiyo mumkin channelka xaysiintiisa eegno kale wuxuu ku xiran yahay dalka Kenya ayuu ku xiran yahay ولو channelka Sharmaboy cidi sida gooda gacanta haysa aad baan u garanaya halka ma aad ugu salaamaya waxa weeyaan runtii wariye Soomaaliyeed iyo YouTuber Soomaaliyeed Cabdiqaadir Koronta la yiraahdo waxa weeyaan xisaab wararka channel la yiraahdo iskale waxa weeyaan inta ugu badan bulshada Soomaaliyeed channelmadooda magaalada Nairobi jooga inta badan gacanta ku haya isaga ninka Saami Cadde loo jiray laakiin hadeerto ku sugan magaalada Muqdisho balse laakiin hadeer waxa gacanta ku haya channelka Sharmaboy soo ka wada warhayno xisaab wararka ama Cabdiqaadir Koronto saa u taqaanaa wata Cabdiqaadir waayahay aad buu mahadsan yahay laakiin inta badan social media sida YouTube-ka iyo Facebook waxay ka mid yihiin laftigooda waxay isticmaalayaan shuruucda warbaahinta oo loo baahan yahay intii aan noqon lahayd qofkii ugu horeeyay oo been sheegay inaad noqoto qofka ugu dambeeya ee xaqiiqda sheega waxaan ku dhiirigelinayaa Cawil iyo asxaabta la midka ah in marka hore macnaha hataa aad soo wacdaan qofka oo macnaha aad soo xiriirtaan wuxuu leeyahay WhatsApp la geli karaa Facebook ku jira in bal aad ka soo weydiiso su'aal inta aan bulshada loo baahin waxay noqonaysaa mar habaabin waa maasan tahay dhaliil lama aha waayahay Koronto inta badan adaa soo wareysa fanaaniinta oo noo qaabilsan haddana xiisaha wararka marka ama Muqdisho joog ama halkan joog xiriir intee lag ayaa idinka dhexeeya horta oo macnaha keenay in lagaaga shakiyo in qof gacanta ku hay ay tahay ولينا ورئيس هذا قصة قاضي حقا كمان بحين Sharmaboy kale
horta sharma asxaab muxuu ay sheeg isgaranay waa aan nahay sidaasoo ay tahana macnaha dad isugu baxda ma jirto dadka isugu keen baxda ma ku jiro marka inta badan waxaa suurtagal ah fanaan hebel koronta oo haaya amaba arin heblaayo in muxuu ay sheeg waxaa muxuu ay sheeg gacan ka geystay koronta gacan ka geystay in asxaabta qaar ay maqlaan waa suurtagal sharma boy hadda aad isugu dhownahay waraysigiisa xiisaha wararka ayaad ka daawan lahaydeen amaba aad ka arki lahaydeen marka macnaha inaan isku xunnahay amaba aanan isgaranaynin macnuhu ma ahan laakiin siyaasad ahaan dadka aysan isugu keen bixin ayuu ku jiraa laakiin aqoon fiican ayaa labadeena isku leenahay marka saaxiibaday deeq daraji iyo tiimkaasaana gacanta ugu hayaan arrimahaasna waayahan dambe waxaan ugu yara gaabsanayna wax kale ma ahayn waxaan diidanayn xog aan dhammaystirnayn iyo inaan ka bariisayno dagaal laba qofoodoo hadda soomaalida niyo problem kala jiro hadda maanta arintaagan haddii aad ka hadasho isla markii automatically waa lagu xukminaa qof walbaa maxkamad kusoo istaajinaya sababta aad saas u dhahday micnaha waxaa la jirtaa nin hebelaa la jirtaa haluule isla markii waayo aad qofkan u xukminaysaan aniga ma garan karo sababta qofku aad u xukminaysaan marka inta ay xukmin lahaydeen amaba aad aniga kuarlan xukmin lahaydeen barnaamijyada qaar markay xiisada aad u taagan tahay xoogaha waa isaga gaabsanayna aniga markay yara danto waxaan kaloo rabaa halkan inaa arrimaha qaar taataabto horta marka aad dabaq ku jirto cariish waxaa la yidhahdaa dhagax laguma tuuro ama guri muraad oo degan ha dhagax lama tuuriye ha waxaan rabaa saaxiibada qaar inaa halkan aan kula wadaago youtuber aad tahay haddii marka dagaal aad seefta usoo baxsato waxaan idin sheegayaa youtube lahaw ama social media lahaw tiknolojiyadda amaba IT-ga horumar ayaa sanadaha ugu dambeeya laga gaaray haddaa is leedahay video hees lagaama qaadan haddaa is leedahay muuqaal lagaama qaadan mar walbo ayaa meel walba suurtagal ay noqon kartaa in lagaa soo weeraro telefon lambarkaaga oo la helo ayaa wax walba ka muhiimsan telefon lambarka waxyaabaha aad social mediaha ay isticmaasho ay kugu samaysan yihiin in la helo ayaa waxaasoo dhanba micnaha isha mararka qaarkood ka adag sababto ah tiknolojiyadda horumaraa laga gaara markaa idin leeyahay lambarkaasaa qofka ku filan inuu ka adeegto haddiiba cadowtooyo ay noqoto marka wax walba ka muhiimsan wanaagga heshiiska dhan walba in laga fiiriyo hadda bulshada waxaa ujeeday inay dhahayeen mar daahir caliso aa guulaystay mar sharma boy aa guulaystay war labadaba muxuuha isha guushooda aa xukminaysaan annaga dhanba guusha waxay ku jirtaa in labadooda inta laysku keeno la heshiisiiyo oo walaaltinimada iyo wanaagga laga shaqeeyo laga dhex shaqeeyo siday ku heshiin lahaayeen oo waxa lagu soo afjari lahaa haddii marka qof uu yani isheeg tusaale haddii sharma boy youtube-kii wuu soo ceshtaan lahay hawaduu ku jira hallah laakiin raggii haddaan la heshiisiinin micnaha beri way soo laabanay arrintan midda kale waxaa suurtagala wax laga shaqeynaya hadda sharma tusaale ahaan heesaha wuxuu ka shaqeeya heestaas macnaha isheeg muusigiistaa tumaayo muxuu isheeg farahay ka bixi kartaa si fudud oo qofkii kaasoo horjeeda uu ku heli karaa marka inta aad ku fikeri lahaydeen in micnaha aana mar walbaba laydin soo weerari karin oo meel laydinka soo gala aysan jirin marka hore waxaa ku fikirtaan in wanaagga mar walba ka shaqeysaan marka la isku dhaco in micnaha qaabkii loo heshiin lahaa oo loo heshiisiin lahaa dhankaas laga soo fiiriyo aniga habeenkii xiisada taagnayd aad baan u farxay waxaan arkayay ninka odayga ahaa shiino coley oo soo dhigay muuqaal uu leeyahay waxaa heshiisiiyey oon soo afjaray dagaalkii sharma wallahi waa ku farxay laakiinse kadib muxuu ii sheeg si aan u xaqiijiyey xitaa labada qof oo xiisada ka dhexaysa mid ka mid ah cabaar la sheekaystay oon la hadlay wuxuu ii sheegay in micnaha warkaas uusan waxba ka jirin maalmo kadib haddana waxaan u jeeday isla asagii inuu dagaalkii dhinac uu la soo saftay oo uu qeyb ka yahay isla asagii naftirkiisa nin idhaha horta sharma boy horta gacana u taagan isla asagii naftirkiisa oo dhahayay soo kacoy hal commenti a loo soo qoran faatahay oo la leeyahay aniga fanaan soomaaliyeed ah mi iyo fanaan qabiil marka taana muxuu ii sheeg waxaa ka qurux badnayd
in hadalkii hore aa qaadatay iyo bointigii hore aa qaadatay oo ah inaa heshiisiisid inaad ka dhabaysid oo cid alaale ciddaa la kaashan karta aad la kaashatid oo aa wanaag iyo muxuu ishag walaaltinimo iyo sidaa u heshiisiin lahayd aa ka shaqaysid labada qofood haddaba waxaa idin leeyahay haddii saan arrintan lagu damiyo weli maysan damini hala heshiisiiyo daahir cali sow waxaa jiro dad badan oo la hadli karo sharma boy waxaa jira dad badan oo la hadli karo labadaas keliya maahaane laba qofoodoo walba oo yani ishag xiisaday ay ka dhexayso sidii lagu heshiisiin lahaa laga shaqeeyo laakiin haddaad sii hurisaan reactionkan aa fiirinaysaan iyo waxaan aa fiirinaysaan waxaa ka muhiimsan in la heshiisiyo sababtaa beri hadday soo laabato waxay gaari doontaa xiisada meel aanan waxba laga qaban karin markaasna haddee wixii aad dhihi lahaydeen hadda sii diyaarsada aad buu mahadsan yahay kaasina waxau ahaa cabdiqaadir koronto intaas ayaan kusoo gabagabeynana barnaamijka intaan dib u kulmi doono dhammaanteeda isku duuban sidaa nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu